مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. kulanti wacan waxaan hore usii wadeynaa duruustii siirada nebiga calayhi salaatu wassalaam. waxaan xalaqadii aan soo dhaafnay kaga soo sheekeynay wafdigii ay quraysh u dirtay xabasha in uu maaragtay guuldaro kala soo noqday oo arrintii ay u baxeen oo ahayd in muslimiintii iyo saxaabadii halkaa u hijrootay inay soo celiyaan oo dhibkii ay ku wadeen oo maka ay kula hayeen ay dib ugu soo celiyaan. arrintii guuldaro inay kala soo laabteen ayaan kasoo sheekeynay. guuldaradaas runtii quraysh aad bay maaragtay uga xumaatay in tiro intaa la eg oo muslimiinta ka mid ah ay dhulka aamin ku yihiin oo ay diintoodii ku haystaan. dhanka kale nabiga calayhi salaatu wasalaamna oo ayagii weli dhex joogo howshiisina u wato oo weli dadkii maaragtay diintii gaarsiinayo oo maaragtay xaqii weli maaragtay si cad dadkii ugu dhex faafinayo. arrintii aad bay ula cuslaatay. mar kale isku yimaadeen wafdi bay soo diyaariyeen. wafdigaanna waxay u soo direen abi aalib bay la kulmeen. markaana markii hore qaabkii ula hadleen qaabkii xoogaa iska deganaa oo codsiga ahaa oo maaragtay wiilkaagan maaragtay bal naga celiyo naga jooji keliya ahayd ma ahayne markaan si kulul ay ula hadleen. waxay ku yidhahdeen abu aalibow waxaa tahay nin maaragtay magac iyo sharaf dhexdeena ku leh oo makaano ku dhex leh ayaa tahay. hadda ka horna waan kuu nimid waxaana kaala hadalnay inaad wiilkaaga aad adeerka u tahay aad maaragtay ka celisid howshaan uu nagu dhex wado inaad ka joojisid baan kaala hadalnay, mana aadan ka joojinin, waa ka howshiisii iska wata. annagana arrintan aad baan u dhibsannay, dulqaadkiina waa uu naga dhammaaday oo uma dulqaadan karno howshaan uu dhexdeena ka wado. marka waxay yidhahdeen abu aalibow laba arrin midood soo gal bay ku yidhaahdeen. in aad wiilkaagan adeerkaad u tahay aad ceshato ood howshaan aad ka joojiso, iyo in aan anagu issoo abaabulno oon adiga iyo asagaba dagaal idinku soo qaadno ilaa labada qole midii maaragtay guulaysata la arko. labadaas arrin mid soo gal ayay ku yidhaahdeen. waa hadal aad u culus. marka abi aalib wuxuu yidhi hala igu yeero nabiga calayhi salaatu wasalaam. in lagu yeero dad buu u diray. nabigii baa loo yeeray calayhi salaatu wasalaam. wuu yimid abi aalib oo meesha fadhiya iyo odayaashii quraysh oo meesha fadhiya. markii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam yimid waxaa la hadlay abi aalib. wuxuu ku yidhi nimankaa in adeerada ah waxay sheeganayaan inaad maaragtay masjidkii iyo meelihii ay ku kulmaayeen inaad ku dhibaysid ayay sheeganayaan, ee waxaa dhibaya ka daay ayuu ku yidhi maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u jeestay odayaashii reer maka, wafdigii quraysh ayuu u jeestay. markaasuu ku yidhi qoomkii la hadlay maaragtay qoraxdaan ma u jeedaan buu ku yidhi. markaasay yidhahdeen haa, sida aadnan idinku u awoodin inaad inta qoraxdaa tagtaan aad dab ka soo qaadaan, sidaadan u awoodin ayaan aniguna u awoodin inaan howshaan joojiyo. maaragtay howshaan ma aha howl nabiga calayhi salaatu wasalaam asaga uu jeebkiisa ka keensaday oo maalinkuu doonana bilaabi karo maalinkuu doonana joojin karo ma aha.
waa takliif iyo waajib alla subxaana watacaala uu saaray. marka waajib uu ilaahay saaray isagu maalintuu doono iskama joojin karo. marka sidaan idinku u awoodin in aad maaragtay qoraxda tagtaan oo dab ka soo qaadaan ayaa aniguna u awoodin inaan maaragtay arrintan aan joojiyo. sidii buu ku yiri. marka Abi Taalibna qoladii ula hadlay wuxuu yiri wiilkayga maaragtay been muusan sheegin ee noqda ayuu ku yiri. wafdigii Quraysh mar labaad kulankii maaragtay Abi Taalib wax maaragtay natiijo kama aysan keenin. haddana arrin kale oo gariiba ayay ku fakareen waqti kale oo runtii muujinaysa inay wareereen oo maaragtay usqida fi aydihim tala gacantooda ay ka baxday. marka ay noqdeen qolo derbiga madax ku garaacay marba meel marba shay isku dayay. waxay u soo bandhigeen Abu Taalib ay mar kale saddexaad u yimaadeen talab gariib ah maaragtay. waxay soo wadeen wiil u dhalay maaragtay al-Waliid ibn al-Mughira oo la yiraahdo Umaara ibn al-Waliid. Abi Taalib bay u yimaadeen waxay ku yiraahdeen wiilkan maaragtay waa wiilasha Quraysh maaragtay ugu yani muuqda weeye. marka waxaan ka rabnaa maaragtay inaad wiilkan aan kugu wareejino oo caqligiisa iyo xigmadiisa iyo taladiisa iyo xooggiisaba aad yeelato ma garatay adigana wiilkan aad u tahay aad nagu wareejiso. marka inamaa huwa rajulun birajul ma garatay anagana maaragtay wiil baan kaa qaadanay mid kale aan kugu wareejinay booskiisa oo booskiisa ku galaya. marka nagu soo wareeji bay yiraahdeen. ninkaana dhibay oo diinteenii ka tegay oo maaragtay dadkeenii kala dhantaalay oo maaragtay ummadii laba qayb ka kala dhigay ma garatay si aan maaragtay yani dhibkan aan meeshiisa kusoo koobno wiilkan aan dilno kana adiga aad haysato maaragtay nafcigii aad maxamed ka heli lahayd aad kan ka hesho. arrintaasi u soo bandhigeen. markaas wuxuu ku yiri wallahi waxaad ila timaadeen waa waxaad u liita maaragtay waxaad isiinaysaan wiilkiina si aan idinkugu koriyo oo maaragtay u ricaayadeeyo anigana keega idin siinaysaa u dishaan waxaas ma caqli baa matalaa maaragtay. marka runtii waxa waaye yani arrin waxay noqotay gariiba. waxaa la hadlay marka nin la oran jiray maaragtay al-Mut'im ibn Adiy wuxuu ku yiri maaragtay Abu Taalibow qoomkaagii way ku cadaalad faleen maaragtay waxayna isku dayeen inay maaragtay adiga ku dhowraan adigana wax kasta waa ka diidan tahay ku yiri maaragtay. markaasuu yiri wax ay cadaalad faleen ma jirtay maaragtay waa wax maaragtay liito wax ay soo bandhigayaan. guuldarooyinkaas ayaa isaga daba tagay marka Quraysh maaragtay wufuudii ay dirsatay wax ay keeni waayeen kuwa Abi Taalib loo diray kuwa Xabasho loo dirayba. marka waxay maaragtay meesha ka sii wadeen cadaawadoodii iyo maaragtay inay culays badan saaraan nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada dhibaateyntii ay meesha ka sii wadaan. marka xaaladaas adag ayay maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii ku jireen oo dacwadii Maka ay ciriiri aad u adag ay maaragtay ku jirtay. iyadoo xaalku sidaa yahay ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu doonay in uu islaamka cizi ku siiyo in maaragtay laba geesi oo geesiyaashii reer Maka ka mid ahaa oo runtii Maka ay aad dhexdooda looga qiimeynayo oo laga heebaysanayo inay soo islaamaan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala islaamka ku cizeeyo ayuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qadaray. markii ay soo islaameen xaaladii oo dhan way isbedeshay oo xaalad kale ayay muslimiintii galeen. labadaa geesina waxaa weeye Xamza ibn Cabdilmuttalib iyo Cumar ibn al-Khattaab radiyallahu canhuma waqti aad isugu dhow ayay soo islaameen. haddaan ka bilowno Xamza sababta uu kusoo islaamay waxay ahayd maalin waxaa dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam oo socda ayuu wuxuu soo agmaray Abu Jahl nin aad u khubti badan oo aad u liita ayuu ahaa oo mar kasta uu nabiga calayhi salaatu wasalaam fursad ku helaba inuu dhibaateeyo ama caayo ma diin jirin maaragtay. marka nabigii oo iska socda uu soo agmaray Abu Jahl meel uu joogo maaragtay. marka Abu Jahl baa wuxuu ku bilaabay inuu nabiga caayo oo weliba si aad u falxun u caayo. marka nabiga calayhi salaatu wasalaamna uma jawaabin mana uusan la hadlin. caayadiisu isaga watay Abu Jahl markii uu daalay ayuu iska baxay dhanka maaragtay Kacbada agteeda u aaday. rag Quraysh kamid oo meesha fadhiya ayuu iskala fadhiistay. nabiga calayhi salaatu wasalaamna meeshii danihiisu iska sii aaday. waxaa arkaysay marka arrinta yani haweeney maaragtay khaadimad u ahayd nin la oran jiray Cabdullaahi ibn Jadcaan aan ninkan kasoo sheekeen xilfi al-fuduulka. haweeneydaas aragtay gurigeedii ku jirtay marka caayadaas iyo waxa dhacaya bay kor ka daawanaysay. kadibna waxaa meeshii soo maray Xamza ibn Cabdilmuttalib radiyallahu canhu oo ka yimid maaragtay ugaarsi u baxay. markii ay Xamza aragtay ay u soo baxday waxay u sheegtay wixii meesha ka dhacay
in maaragtay Abu Jahal uu si aad u foolxun uu nabiga calayhi salaatu wasalaam u caayay, nabigana uusan u jawaabin ayay u sheegtay. marka arrintii markuu maqlay aad buu u xanaaqay, si kulul ayuu u xanaaqay. horeba wuxuu ka aaday meeshii Abu Jahal u joogay. markuu meesha ugu tegey ayuu wuxuu ku bilaabay maaragtay inuu la hadlo, uu yiraahdo maaragtay ma wiilka aan adeerka u ahay baad caynaysaa anigoo diintiisa ku jira, waana calaa diinihi aquulu maa yaquul, waxa uu leeyahay maxamed ayaa aniguna leeyahay, ma garatay. kadibna wuxuu qabsaday qaansadii ayuu qabsaday, markaasuu maaragtay madaxa kaga dhuftay, dhaawac maaragtay uu geystay Abu Jahal. rag reer bani Makhzuuma ayaa istaagay oo rabeen inay maaragtay u gurmadaan Abu Jahal. Abu Jahal baa celiyey, wuxuu yiri maya ka jooga, iska daaya Abaa Cumaara, faraha ka qaada, aniga ayaa maaragtay wiilka adeerka uu yahay si xun u caayay, marka faraha ka qaada uu yiri. marka intaa markay dhacday meesha lagu kala tagay, Xamzana maaragtay gurigiisa iska aaday. guriga markuu tagay riwaayadku waxay sheegayaan in Xamza uu maaragtay habeenkii dhan aad u fakarayay, uu arrintan maaragtay ka fakarayay, laannahu marka hore xanaaq ayaa ku kalifay inuu hadalkan yiraahdo, oo ah in uu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam diintiisa inuu ku jiro wax uu leeyahay uu ku waafaqsan yahay, hadalkaa maaragtay uu yiri. marka yacni dhanna maaragtay waxaa dhibaysa in shay uusan ka wada qancin 100% uu go'aansaday inuu saa ku galo, uusan shay aanan ahayn inuu maaragtay kusii socdana way dhibaysaa. in hadda hadal uu yiri uu ka noqdana maaragtay waa arrin dhibaysa maaragtay. marka fakar dheer uu galay, kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu waafajiyey inuu ilaahay baryo, inuu ilaahay maaragtay tawfiiqda waafajiyo, inuu ilaahay ka baryo. kadibna subaxii ku xigay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu u tegey. nabigana marka arrintii u sheegay iyo xiirada haysata ayuu u sheegay. markuu yiri bal ila hadal buu ku yiri, nabiga calayhi salaam buu ku leeyahay ila hadal. marka nabiga ayaa la hadlay oo waaniyey oo wax badan u sheegay. kadibna qalbigiisa baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dejiyey islaamkii. meesha ayuu marka ku islaamay oo yiri ashhadu an laa ilaaha ila allah wa annaka rasuulullah. ilaahayna subxaanahu wa tacaala iimaankii buu qalbigiisa ku qaboojiyey. runtii Xamza wax badan ka garanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam, islaamkan wax badan waa ka maqlaayay, laakiin dad waxay ahaayeen waxa ay galayaan inay ku galaan inay maaragtay shay uu marka qofkan soo go'aansaday uu si rasmi ah u galo, ma aha wax maaragtay qofku uu lug la galaya lugna ay banaanka u taalo. dhaqankaas ma aynan lahayn. sidii marka Xamza ku islaamay oo runtii maaragtay cizi weyn islaamka u noqotay islaamidiisa, waxaana wax yar kadib ku xigsatay islaamidii Cumar radiyallahu anhu oo runtii iyadana cizi kale u noqotay muslimiinta. qaabkii uu ku islaamay Cumar radiyallahu anhu hadda u imaano riwaayad kala duwan ayaa ku soo arooray, laakiin laba riwaayo oo isdhamaystiraya ayaan soo qaadan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. riwaayada koowaad waxay sheegaysaa in Cumar ibn al-Khattab radiyallahu anhu uu habeen gurigiisa ka soo baxay, wuxuu yimid xaramka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo maaragtay meesha ku tukanaya ayuu yimid. maradii kacbada ayuu maaragtay isku qariyay oo gadaasheeda ayuu galay si uu nabiga calayhi salaatu wasalaam quraanka u akhrinayo uu u dhageysto. marka suuratul Xaaqa ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam akhrinayay, aayaadkii buu aad u dhageystay, aad buuna aayaadkii ula dhacay. marka qaabka maaragtay uu maaragtay siyaaqa hadalka u socdo, macaanida maaragtay uu ka hadlay buu aad maaragtay u jeclaystay. markaasuu markuu aad ula yaabay wuxuu yiri wallahi waa shaacir. warkii Quraysh ay dhihi jirtay oo maaragtay odayaashu ay ku celcelin jireen ayuu maaragtay yiri, macna wuxuu yiri waa shaacir. marka aayaadkii ugu dambeeyay suuradda ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam soo gaaray. marka uu leeyahay Cumar waa shaacir, nabigu wuxuu akhrinayaa marka wax yar kadib qowluhu tacaala innahu laqawlu rasuulin kariim wamaa huwa biqawli shaacir qaliilan maa tu'minuun. marka wuxuu yiri idan waa kaahin, waa faalalo maaragtay. marka haddana aayadda ku xigta ayuu akhriyay nabiga calayhi salaatu wasalaam walaa biqawli kaahin qaliilan maa tadakkaruun. wuxuu yahay marka quraanka waa tanziilun min rabbi alcaalamiin, waa kitaab alla agtiisa laga soo dejiyey, waa hadal alla subxaanahu caza wajalla. intii markuu dhageystay uu nabiga calayhi salaatu wasalaam suuraddiina dhameeyey, qalbigiisa saameyn oo maaragtay baa arrintii ku yeelatay oo waqaca alislaamu fii qalbihi, islaamkii baa qalbigiisa saameeyey. taa marka waxay ahayd saameyn maaragtay wax badan noloshiisa ka beddeshay. kadib riwaayada kale haddaan usoo gudubno waa riwaayada mashhuurka ah. waxay sheegaysaa iyadana Cumar ibn al-Khattab inuu maalin soo baxay, usoo baxay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu soo dilo
وسيفتي سو xirtay marka uu soo aaday nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay wadada ku kulmeen nin la yiraahdo maaragtay Nucaym ibn Cabdillah marka ninka baa marka la hadlay oo ku yiri intee u socotaa Cumarow wuxuu yiri waxaan u socdaa Maxamed baan u socdaa inaan soo dilaan rabaa ninkii odaga u jawaabay wuxuu yiri oo sidee u fakaraysaa Cumarow sidee isleedahay waad ku badbaadaysaa uga badbaadaysaa reer Bani Hashim haddii aad soo dishid Maxamed soo dishid sidee isleedahay waad ku badbaadaysaa macna way ku dilayaan meel aad kaga baxsanaysid ma laha ninka marka la istaagay waa muslim laakiin Cumar ma ogo marka wuxuu rabay inuu cabsiyo maaragtay si uu uga haro arinta marka aad bay u doodeen ilaa codkoodii kor u baxay maaragtay codkoodii u dheeraaday Cumarna uu leeyahay waxaan u malaynayaa inaad diintii ka baxday oo Maxamed diintiisa aan raacday wuxuu la yaabay qaabka uu ninkan isugu dayayo inuu ka celiyo arintan markii uu arkay marka inuusan Cumar arinta ka joogsanaynin si kastoo loo cabsiyo wuxuu damcay inuu qaab kale uga leexiyo wuxuu ku yiri maaragtay arin ka yaab badan ku sheega waa maxay buu yiri wuxuu yiri walaasha Fatima bint al-Khattab iyo saydiga oo maaragtay Saciid ibn Zayd labadooda Maxamed ay raaceen marka waxa waay arintii markuu maqlay Cumar wuxuu soo aaday guriga ay soo aaday Fatima gurigeeda soo aaday markuu guriga maaragtay gurigan waxa jooga Fatima iyo ninkeedii Saciid ibn Zayd iyo Khabbab ibn al-Arat oo markaa Quraanka baraya ayaa guriga jooga markuu Cumar albaabka u soo dhawaaday cod buu maqlay Quraankii akhrinayeen buu maqlay laakiin ma fahmay waxa la akhrinayay wuxuu yahay xogaa cod ayuu maqlay oo markaa ka shakiyay markuu albaabkii garaacay iyagana ay dareemeen in Cumar yahay waxa jooga yimid waxay maaragtay Khabbab guriga ayaa gudaha ayuu ku dhuntay Cumarna albaabkii laga furay markuu soo galay wuxuu ka bilaabay waa maxay maaragtay codka aan maqlay markaas waxay yiraahdeen oo sheeka anaga sheekaysanayna ma maqashay wax kale ma ahayn ma yiri waxaan soo maqlay oo la ii soo sheegay inaad diintii ka baxdeen oo Maxamed aad raacdeen ayuu ku yiri ayagana mar haddii arkeen in arintoodii ay ka shifantay wax markaa la isku sii qarqariyay meesha ma yaalo waxa la hadlay Saciid wuxuu ku yiri Cumar oo ka waran haddii xaq uu ku jiro diintaada meelan ahayn haddii uu ku jiro ka waran Cumar markii uu ku booday Saciid ilaa uu dhulka dhigtay uu si daran u garaacay kadib waxaa timid Fatima oo damacday inay ka celiso ayadana dharbaaxa xoog badan buu ku dhuftay ilaa wajigii uu maaragtay dhiig kasoo ka yimaado dhaawac u geysto markii intaa ay dhacday ayadii marka caadifoon ay hadalkii maaragtay si kulul u sii maqashiisay oo ay leedahay xaq wuxuu ku sugan yahay diintaada meelaan ahayn ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah Cumar runtii wuxuu ahaa si kastoo u kulkulaado qof wuxuu ahaa maaragtay durbadiiba soo dega oo maaragtay soo jilca ayuu ahaa caadifad leh maaragtay gaar ahaan markuu dareemo inuu wax ka halaabeen ama wax khalday qof maaragtay dul istaaga oo isqabta ayuu ahaa maaragtay qof ku sii socda ma ahayn markuu arkay xaaladda ay walaashii ku sugan tahay iyo dhiigga maaragtay ka da'ay iyo maaragtay digii wuxuu ku sameeyay iyo hadalkii ay dhahaysay saameyntii uu ku yeeshay iyo dabcan xadadkii hore aan ka soo sheekeynay quraankii hore u saameeyay wixii buu maaragtay ku fakaray ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr buu la doonayay marka xoogaa qalbigiisii baa soo jilcay marka warqadii ay wax ka akhrinayaan quraanka akhrinayaan wuu arkay marka wuxuu maaragtay ka codsaday inay warqadii loo dhiibo uu akhriyo markaasi waxay ku tiri maya adigu waxaa tahay bay ku tiri maaragtay qof mushrik ah oo najis ah marka waa inaad soo qubaystaa soo daahirisaa sidaan kuguma dhiibi karo maaragtay warqad ay ku qoran tahay aayaadka ilaahay ku qoran yihiin marka uu soo qubaystay uu soo maaragtay daahiriyey kadibna aayaadkii maaragtay warqadii bay u dhiibtay aayaadkii buu akhriyey aayaadka ugu horeeyay suuratu taaha ayay ahaayeen marka ilaa uu soo gaaray maaragtay inanii ana allaahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii wa aqimi salaata lidikrii markaasuu yidhi hadalkan waxaa ka wanaagsan maaragtay itusoo yidhi maaragtay ii geeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam Khabbab ibn al-Arat markuu intaa maqlay maaragtay guriga gudihiisa ayuu ku jiray uu soo baxay Cumar u yimid wuxuu ku yidhi Cumarow bishaarayso waxaan rajaynayaa buu yidhi in ilaahay subxaana wa tacaala ku aqbalay ducadii nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ku duceeyey in ilaahay subxaana wa tacaala islaamka uu ku cizeeyo labadaa nin mid ka mida maaragtay Cumar ibn Khattab ama Abi Jahl labaduba waxay ahaayeen laba qof oo shakhsiyad leh oo maaragtay يعني وحي قلان مارتي قلان أو مارتي أي أهين لكن عمر بن الخطاب أي إلهي سبحانه وتعالى دور شديس يكون عليه
waxaan ahaa maaragtay ilaahay subxaana watacaala saa garanaya cidda mudan hanuunka asaa garanaya ilaahay subxaana caza wajal. cumarna saan hadda soo tilmaamnay wuxuu ahaa qof maaragtay kale kasta uu kulkulul yahayba qof maaragtay haddana riqa leh oo maaragtay degan ayuu ahaa. baynama abujahal waa nin aad u khobti badan, xumaanta iyo khaladkiisana kusii adkaysta, waxna aanan ka xishoonin ayuu ahaa. laakiin cumar mawaaqif badan waxaa jirtay si kastoo muslimiintu ugu kullaan jiray haddana marar badan qalbi ahaan waa soo jilci jiray, waa uu soo degi jiray maaragtay. qiso waxaa jirta haweeney muslimaadkii saxaabadii ka mid ahayd oo safraysay hijradii xabasha u socotay ayuu habeen la kulmay. markii aragtay inuu cumar arkay way naxday, laanna dadkii ugu daran ay ka dhumanayso ka mid yahay. marka isagii markuu arkay runtii yani inkastoo dagaal uu kala dhexeeyey uu la dirirayay maaragtay, laakiin haddana wuxuu dareemayaa dagaalkii ay ku hayeen muslimiinta inuu sababay in qoladan magaaladoodii ay ka cararaan oo ay maaragtay qurbo galaan. marka wuu u jilcanaaday, wuxuu yidhi ahwal firaaqu ya umma cabdillaah, ma naga tegaysaa maaragtay. waxay tiri waa idinka tegeen, waana dhibteen maaragtay, yani diintana naga fidnayseen, waan maaragtay marka dhulka ilaahay baan aadaynaa maaragtay bay ku tiri. wuxuu ku yidhi marka saaxiibadkii salaama, nabad ha idinla jirto maaragtay, nabad ku safar ayuu ku yidhi. marka waxaa waaye ficlan ilaahay subxaana caza wajalla ayaa maaragtay u dooray ducadaas una aqbalay. sidii ayuu marka cumar ibn khadaab ku soo aaday nabiga calayhi salaatu wasalaam meeshii uu joogay oo maaragtay uu soo aaday. nabiga iyo saxaabada waxay hayaan warkii hore oo ah cumar inuu soo socdo nabiga inuu dilo, laakiin isbeddelkan dhacay saxaabadii ma ogo. markii uu yimid gurigii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada ay joogeen ayay saxaabadii waxay ka arkeen albaabka duleel yar oo ku yiilay ayay ka arkeen. marka waxay yidhaahdeen yani cumar baa yimid oo seeftiisii wata, way naxeen. marka yani waxaa maaragtay yiri xamza baa maaragtay wuxuu yiri ka fura, haddii uu khayr doonayana waan soo dhaweynaynaa, haddii kalena maaragtay waa sahlantahay inaan maaragtay sahlan aan uga takhalusno. marka hadduu shar uu wata maaragtay. marka uu soo galay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa marka ayaa yiri la soo daayay, gudaha la soo geliyo. nabiga calayhi salaam markuu u yimidnay nabiga ayaa wuxuu ka qabtay qoorta, uu ka qabtay dharkiisii qaybtaa kore ayuu ku qabtay. markaasuu si xooggan u soo jiiday. markaasuu wuxuu ku yidhi maaragtay cumarow ma ka joogsanaysid miyaa maaragtay jidkan khaldan aad ku socotid ilaa ilaahay subxaana watacaala uu kugu soo dejiyo wax xoog oo kugu soo dejiyo sida uu ugu soo dejiyey waliid ibn almugiira ayaadkii maaragtay loogu bishaareeyey cadaabka. taas baad sugaysaa cumarow ayuu ku yidhi. marka sidii baa marka cumar ibn khadaab markii waa islaamay, wuxuu yidhi maaragtay ashhadu an laa ilaaha illa allah wa annaka rasuulullah. meeshaa marka muslimiintii oo dhan ay isla wada takbiirsadeen, farxad weyn ay u noqotay, ay maaragtay ilaa takbiirada ay takbiirsadeen allahu akbarta ay ku dhawaaqeen ilaa masaajidkii xaramka laga maqlay. marka qasab ay noqotay sida riwaayadka qaar sheegayeen in meeshii lagu kala tago xoogaasi maaragtay jawigii loogu ilaaliyo. cumar markii uu islaamay wuxuu go'aansaday in uu islaamkiisa caddaysto, bal maaragtay uu gaalada ku waajaho. marka wuxuu soo aaday abujahal maadaama uu yahay ninka ugu daran ee muslimiinta la diriraya. gurigiisa ugu yimid, albaabku u garaacay, wuxuu ku yidhi maaragtay war baan kuu hayaa maaragtay, maxay waxaa ii sheegaysid? waxaan kuu sheegayaa inaan ilaahay rasuulkiisa aan rumeeyey oo waxay la yimid oo nabiga calayhi salaam ilahay agtiisa kala yimid aan qaatay maaragtay ayaan kuu sheegayaa. markaasuu albaabkiibuu ku tuuray, albaabkiin uu ka xirtay. qabaxaka allaahu buu yidhi waqabaxa maa ji'ta bih maaragtay. sidoo kale wuxuu damcay maaragtay cumar in khabarka islaamkiisa uu magaalada marka ku faafo. wuxuu yidhi yaa ugu warfaafin badan magaalada? waxaa la yidhi jamiil ibnu macmar in la yidhaahdo ayaa ugu faafin badan baa la yidhi. marka ninkii u tegey, marka arrintii u sheegay wuxuu yidhi anigii waan islaamay buu yidhi. marka ninkii inuu baxo oo dadka u sheego oo magaalada marmaro baa la sugaayey, maba sugin ba isla markii meeshuu qaylo ku dhuftay. cumar oo xataa ka dhaqaaqeen oo meesha taagan qayladii ku dhuftay. wuxuu yidhi war ogaada ninkii cumar ahaa saba cumar diintii uu ka tegey, lafdigaasi isticmaali jiray. markaasuu cumar maaragtay been baad sheegtay, bal aslamtu ma garatay. wixii gaaladii meesha joogay cumar bay dagaal ku soo qaadeen, ay bilaabeen inay garaacaan, asagana uu garaaco maaragtay ay asaga keligiisii iyagii ay isgaraacayaan ilaa uu cumar daalay oo markaa iska fadhiistay. asaga iyagina maaragtay laftarkooda ay daaleen oo korkiisa ay taagan yihiin. markaasuu leeyay waxaad doontaan sameeye, ilaahay baan ku dhaartee haddaan 300 oo qof aan noqono magaalada ama annaga idinkaga tegeen ama idinkaa nooga tegay ayuu ku yidhi maaragtay. kadib gurigiisu iska aaday. gaaladii arrintii way maaragtay u adkaysan waayeen. riwaayo cajiib badan waxaa jirta oo bukhaari warinayo oo ah maaragtay in ay gaaladii yidhaahdeen
damcaan inay maaragtay cumar gurigiisa intay ugu tagaan ay markaan soo dilaanba ka takhalusaan. marka iyagoo tiro badan ayay maaragtay guriga dhankiisa soo aadeen. marka cumarna markaa guriga ku jiraa, ayagana waddadii dhan bay maaragtay soo buuxiyeen. marka gurigii waxaa ugu tegey Caas ibn Waa'il, maaragtay Camr ibn al-Caas aabihii ayaa cumar guriga ugu galay. markaasuu ku yidhi, cumar waa maxay, maxaa wax jira? wuxuu yidhi, ummaddan dhan baa maaragtay igu soo socoto oo rabaan inay idilaan. markaasuu yidhi, waxa faraha ka qaado yidhi maaragtay. isagaa u baxay Caas ibn Waa'il, qoladii u tegey. wuxuu yidhi, dhegeysta, annaga haddaan nahay reer Bani Saham, waa qolada uu ka dhashay Caas ibn Waa'il. waxaa waaye reer Bani Cadi, qolada uu cumar ka dhashay, xulafaan nahay. nin ka mid a reer Bani Cadi dhibkii gaara, reer Bani Saham waa maaragtay waa u gurmanayaan. qof reer Bani Saham dhib gaarsiiyo oo kaleeta la mid tahay. marka haddaba wuxuu yidhi maaragtay ninkii ragga cumar aadi kara hal arko. marka kaanna waxay noqdeen go' maaragtay la fayday oo kale noqdeen. wixii dad soo socday oo cumar gurigiisii u socday hal maray maaragtay gadaal isaga noqdeen. marka ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay ka badbaadiyey. cumar iyo xamse islaamkooda waxaa u dhexeeyey 3 maalin. cumar ibn khadaab markii intaa ay dhacday kadib nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu u yimid. wuxuu ku yidhi, rasuulka ilaahayo, soo annaga xaq kuma taagnin, si kastoo nolosheen ay ahaatay, haddaan noolnahay haddaan dhimanaba sidaad xaq ku taagan manihin. markaasuu nabi alay slam, haa xaq baad ku taagantihiin. wuxuu yidhi, marka maxaan isku qarinaynaa? wuxuu maaragtay ku taliyey in ay soo baxaan oo ay maaragtay cadowga ilaahay ka caraysiiyaan oo ay banaanka usoo baxaan muslimiinta iyagoo wada socda. sidaa marka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu maaragtay arrintaa cumar soo bandhigay ku aqbalay. muslimiinta inay soo baxeen ayagoo markaa 2 saf ah, safna uu ku jiro Xamza, safna uu ku jiro maaragtay cumar. marka masaajidkii bay yimaadeen, Quraysh oo dhan ay fiirsanayso, maaragtay murug iyo maaragtay walwal ayaa runtii asiibay reer Maka oo markaas maaragtay arrinta tala gacantooda ay ka baxday. maalinka ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam u baxshay Cumar ibn Khataab al-Faaruq ayuu u baxshay, kii maaragtay xaq iyo baadilka kala soocay. maaragtay saxaabada dhanna runtii islaamka cumar wuxuu ahaa yacni nasri buu ahaa. waxay yidhaahdeen, ma aanan ku dhiiran jirin inaan kacbada agteeda ku tukanno, kuma aanan dhiiran jirin maaragtay ilaa uu cumar islaamo. waxaan ka soo sheekeynay iska day saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo qof laga heebeysta ah oo haddana maaragtay reer Bani Hashim looga baqaayo muddo labaad ayaa haddana maaragtay kacbadii ku tukashadeeda dhib badan ku haysatay. oo mar Abu Jahl uu ku dhibo, oo mar Cuqba ibn Mucayd wax korka ka saaro, mar maaragtay dhagax inay ku sii daayaan dabcan dhib badan maaragtay kala kulmi jiray. marka saxaabada iska daa inay markaa ku dhiiradaan inay meesha ku tukadaan. marka laakiin markuu cumar soo islaamay, saxaabadii maaragtay intay isku yimaadaan ee xaramka wada yimaadaan ayay meesha ku tukan jireen. marka nasri ayay arrintii ka heleen. axdaas badan oo runtii jab ku noqotay mushrikiintii ayaa iska daba dhacay oo xaalad adag bay galeen. arrintii maaragtay waxay ku noqotay walwal iyo walbahaar. mar kale isku yimaadeen. markaan waxay dooneen inay nabiga calayhi salaatu wasalaam ay markaa u tagaan gorgortan cusub oo nooc kalaana ay markaa ula tagaan. way isku yimaadeen. ninka la yidhaahdo maaragtay Cutba ibnu Rabiica ayaa tala soo jeediyey. wuxuu yidhi, ka warrama haddaan u tago Maxamed oo aan maaragtay maxay ahayd arrimo qaar aan u bandhigo, lacallow inuu mid ka mida naga aqbalo. marka waxay yidhaahdeen, okay, u tag. marka nabiga calayhi salaam ayuu u yimid. wuxuu yidhi maaragtay, Maxamedow, waxa waaye qof maaragtay qiimo agteena kale oo nasab ahaan iyo maaragtay tol ahaan iyo ayaad ahayd. waxaad qoomkaaga ula timid arrin aad u dhib badan. qoomkii hal habaad kala jebisay. waxa waaye aalihadoodii baad maaragtay wax kama jiraan ku tilmaamtay. odayaasheenii hore baad ku tilmaamtay inay baadi ku sugnaayeen. wuxuu yidhi, marka dhib badan ayaad noo keentay. marka waxaan rabnaayo inaan dhowr arrin kuu soo bandhigno, lacalla inaad mid ka mida naga aqbasho ayaan rabnaa. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi, waan ku maqlayaa maaragtay, waan ku dhegeysanayaa buu ku yidhi maaragtay. marka wuxuu yidhi, haddii aad maaragtay Maxamedow arrintan aad la timid iyo diintan aad la timid aad ku doonaysid xoolo oo aad leedahay hanti ku hel, waxaan ku aruurinaynaa buu yidhi, hanti badan baan ku aruurinaynaa ilaa aad noqoto ninka annaga noogu dhaqaalo badan aad noqoto maaragtay ayaan kuu samaynaynaa. waa arrintii koowaad u soo bandhigay. haddii waxa aad doonaysid ay tahay sharaf iyo magac inaad yeelato, waxaan kaa dhigaynaa maaragtay sayid baan kaa dhigaynaa ilaa aanan hal arrin aanan go-aan ka gaarin, ilaa adiga maaragtay la-aanta aanan go-aan ka gaarin macnaha.
marka arrintaasna wuu usoo bandhigay. arrinta labaad, haddii boqornimo aad ku doonayso inaad noqotid boqor oo taaj aad xirad aad rabtidne ma aragtay boqor baan kaa dhigaynaa annaga dhan ba haddaan isku nimaano maligeeni baan kaa dhigaynaa. laakiin intaa waa maxay? waa inuu diintiisii tawxiidka ka taga wey macna ma garatay, leanno tawxiidkaas waa wax dhibaa iyaga ma garatay. waxa kale o dhan waxay diyaari u leeyihiin. marka waxay kaloo yidhaahdeen haddii waxaan maaragtay ku haysta uu yahay wax dhib kugu ah oo maaragtay aad jin ku imaanayo oo ku dhibaayo uu yahay maaragtay aadan iska celin karinne waan kaa daaweynaynaa ayuu ku yidhi. xoolo kasta oo aan lehna aan ku bixinaynaa ilaa aad ka caafimaaddo ma garatay. marka yacni hadalkaasuu ku yidhi. waxaasoo maaragtay qaabdaraa intuu leeyahay nabiga calayhi salatu wasalaam si degan buu u dhageysanayaa. maaragtay markuu dhameeyeyna wuxuu ku yidhi maaragtay afaraqta yaa abalwaliid, yacni ma dhammaysatay buu ku yidhi. markaasuu yidhi haa waan dhammaystay. markaasuu yidhi iga dhegeysa. marka wuxuu u akhriyey aayaadka ugu horeeya ee suuratul fusilat ayuu akhriyey. bismi illaahi raxmaani raxiim. xaamiim tanziilun min arraxmaani arraxiim kitaabun fusilat aayaatuhu qur'aanan carabiyan liqowmin yaclamuun bashiiran wanadiiran faacrada aktaruhum fahum laa yasmacuun waqaaluu quluubuna fii akinatin mima tadcuuna ilayhi wafii aadaanina waqrun. aayaadkii buu nabiga calayhi salaatu wasalaam akhriyey ilaa uu maaragtay soo gaaro fain acraduu faqul andartukum saaciqatan mithla saaciqati caadin wathamuud. meeshaa markuu marayo aad buu maaragtay u naxay ee cutba ilaa uu nabiga calayhi salaam afka uu maaragtay gacanta ka saaro yidhaahdo maaragtay ilaahay baan kugu dhaariyey iyo qaraabanimadii jooji maaragtay uu ka baqay yacni arrintaa halaaga uu ka baqay. marka nabiga calayhi salatu wasalaam ayuu ka soo noqday. marka raggii saaxiibadiisu u tagay markaasuu wuxuu ku yidhi yacni waxaa waaye markuu usoo galayba waxay yidhahdeen maaragtay abalwaliid wuxuu idinla yimid wejigii uu ku baxay weji ka duwan, macnaha waa is soo bedelay bay yidhahdeen. markaasay yidhahdeen haye bal noo waran maxaa kala kulantay? wuxuu yidhi hadal waxaan soo maqlay aanan maaragtay wax la mida uusan jirin maaragtay. shicirna ma ahan, sixirna ma ahan, kahaanana ma ahan, maaragtay faalalowna ma ahan. wuxuu yidhi nimayo dhegeysta ma garatay oo maaragtay maxay ahayd maanta warkayga iga qaata. ninkan faraha ka qaada, asaga iyo diintiisa wixiisa faraha ka qaada ma garatay. haddii asaga iyo carabta intay iska hor yimaadaan ee carabtu ay ka guulaystaan oo dilaan, hadda iyagaaba idinka kaafiyey. hadduu asaga awood yeesho guulaysto oo carab oo dhan uu qabsadana hadda waa nin idinka mid a, guushiisana waa guushiina maaragtay maxay ahayd waana maaragtay farxad ba idin tahay buu ku yidhi maaragtay. markaas waxay ku yidhahdeen wallahi wuu kusoo sixray maaragtay, warkiisana way ka diideen macnaha. gaaladii markay wax kastoo isku dayaan ay suurtageli waayeen, xaaladda marka ay ku jiraan mushrikiinta waa xaalad waxa ka dhalan kara aan la qiyaasi karin, waa xaalad aanan aamin laga noqon karin. waxaa waaye si kasta waxay isugu dayi karaan inay wax dhibah sameeyaan, inay nabiga calayhi salaam ikhtiyaaraan oo gaadmo ay ku dilaan. wax badan baa ka suurtoobi kara. abi taalibne wuxuu ahaa qof aad u aragti dheer. markuu arkay xaaladda meesha ay marayso, qofkuna sidiisa markuu quus taagan yahay, yacni mushrikiinta nooc quus camal ay taagan yihiin. quustaas markay marayso waxaa dhici karta qofku inuu waxyaalo khatara sameeyo, uusan cawaaqibta qaarkiis uu marka hore xisaabin jiray uusan xisaabinin. marka wuxuu yidhi yacni si kastoo ay maaragtay maxay taraysaa reer bani haashim inay difaacaan ama cumar iyo xamse ay haddii qof mushrikiinta ka mid oo nabiga calayhi salaam si gaadmaa ku dilo waxa uma soo kordhinayso. marka wuxuu yidhi yacni wuxuu isugu yeeray reer bani haashim, wuxuu yidhi maaragtay meelaha aan ku kala faafsannahay suurtagal maaha, hal meel aan isugu tagno oo aan maaragtay degno. shicib weyn marka goof weyn oo isaga lahaa ayay degeen meeshaas. marka nabiga calayhi salaamna isku hareereeyeen si maaragtay ay uga taxadaraan in gaaladii maaragtay wax dhiba ay u geystaan nabiga calayhi salaatu wasalaam. arrintaas ayuu sameeyey. marka meeshaasay marka ay galeen. waxaa kaloo maaragtay shicibka la soo galay maaragtay almuطalib ibn cabdi manaaf, reer bani muطalib ibn cabdi manaaf. macnaha cabdi manaaf 4 wiil ayuu dhalay. 4 wiil waa haashim, waa qolada nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka dhashay, iyo maxay ahayd muطalib oo maaragtay maxay ahayd qoladan labaad oo markaa soo raaci doonta reer bani haashim, iyo nawfal iyo maaragtay cabdishams. cabdishamsna waa qolada marka abi sufyaan iyo cutbe iyo ay ka dhasheen.
marka Nawfal iyo Cabdishams iyo Quraysh intooda kala raaceen Muttalib iyo reer Bani Hashim ayaa waxay galeen shacbigii Abi Talib goofkii Abi Talib ayay galeen nabiga calayhi salaamna meesha ayay ku waardiinayeen halka ayaan ku ekeysanaynaa xalaqadeena inta aan xalaqa kale kaga kulmi doonno waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh